حديث اليوم وحديث كمانتا. إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. أخرجه مسلم. أبي عمرو أما أبي عمرة وسفيان بن عبد الله ayaa waxaa laga wariyey alla raaliha ka ahaadee inuu yidhi waxaan idhi rasuulkii allow islaamka iiga sheeg wax aanan cid aan adiga ahayn weydiinin. wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama ugu jawaabay waxaad dhahdaa allaan rumeeyey dabadeedna toosnow. muslim ayaa xadiidkan soo saaray. faa'iidooyinka xadiidka. kow, xadiidkani waa xadiid ka mid ah hadal xeeldheerida alleh ku manaystay nebiga sala allahu calayhi wasalama ee loo yaqaan kelimadaha yar ee macnaha ballaaran gudbiya. oo saxaabigu radiallahu canhu wuxuu dalbaday in hadal deeqa oo uusan u baahan inuu cid dambe weydiiyo rasuulku sala allahu calayhi wasalama uu shareecada uga sheego. rasuulkuna sala allahu calayhi wasalama wuxuu ugu jawaabay laba jumlo oo kulansatay iimaankii iyo islaamkii, camalkii qarsoonaa iyo kii muuqday, iyo shaqadii qalbiga iyo tii xubnaha kaleba. bal eeg, waxaad dhahdaa waxaan rumeeyey alleh carabkii, qalbigii iyo acmaashiiba way kulansatay. labo, dadaalka asxaabtu cilmiga iyo barashadiisa u hayeen ugana faa'iidaysan jireen amaba uga faa'iidaysanayeen su'aalaha nebiga sala allahu calayhi wasalama ay dadka kale weydiiyaan. saddex, caqliga saxaabiga xadiidka wariyey oo su'aashiisa iyo qaabka uu ugu xadiday nebiga sala allahu calayhi wasalama labaduba ay cajaa'ib leeyihiin. afar, dadaalka ay asxaabtu cilmiga u hayeen iyo sida xadiidkan iyo kuwo kaleba ka muuqata oo saxaabigu asxaabta kale ee ka cilmi badan wax u weydiin jiray. shan, wuxuu amray inuu carabkiisa iimaanka ku cusboonaysiiyo isagoo qalbigiisu la socdo, markaasna ku toosnaado daacada rabbi kana fogaado mukhaalafadiisa. lix, daacada alle ee la rabo in lagu toosnaadaa waa mid la aamino, mid lagu hadlo iyo mid la sameeyo intaba. toddoba, u fiirso kelimada istiqaama, ku toosnaan, iyo macnaha ay xambaarsan tahay. hebel waa wadaad, hebelna waa caadi, iyo wixii la mid ah. sow ma dhaanto in la yidhaahdo hebel diinta alle ayuu ku toosan yahay, ilaan ku toosnaanta waa loo siman yahay, waana tan diinta ku soo aroortaye. laakiin ogow, cilmi waa la isdheeraan karaa, waana in la isku ixtiraamaa cilmigaase. siddeed, toosnaanta waxaa ugu horreeya ee lagu cabbirayaa waa gudashada waajibaadka iyo ka fogaanshaha waxa la iska xarrimay. sagaal, waxaa laga fahmayaa xadiidka in qofka ay ku habboon tahay inuu naftiisa dib isugu noqdo oo isqiimeeyo inuu jidkii alle ku toosan yahay iyo in kale. fiiri saxaabiga xadiidka warinaya iyo su'aashiisa. toban, toosnaantu waa macno ballaaran tahay, heerar kala duwanna waa leedahay. tusaale, qofkii salaadiisa aan ku dadaalin oo aan dahaaradeeda iyo wakhtigeeda ilaalini ma toosna. qofkii dadka dhaca ama ku xadgudbaa ma toosna. sidoo kalena qofkii mas'uuliyaadkiisa dayaca ama khiyaana ma toosna. 11, qaabka xadiidkan waxaa iyana ku soo arooray aayado qur'aan ah oo faahfaahinno dheeraad ah ka sii bixiyey. waxaana ka mid a suuratulaxqaaf waxa uu allah subxaanahu wa tacaala ku leeyahay:
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في سورة فصلت اسنوحوا الله سبحانه وتعالى كليهي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. في سورة هود وحو كليهي فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هدبا الله سبحانه وتعالى هاينا قدقو كو آيادهاس إيو حديثك إيو فهنكوذا انتبا كوبا وويليا رعاء كدقما نفعنا كهلا انت اينو حديثك حقاكو كل مدونو وحان إذن كغتغينا أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله. إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله